Guys, welcome Sweden. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا وولاشين رقيها بي مرلباد يو فيديو عصب. كسو دوادا ومالينما أحد لبادا كون يشان يلباتانكا 16 أبريل. walaashiina waxay nala jeceshahay wax kastay sameynayso inay nala soo qaybsato maanta oo axad ee tahay shaqana lahayn 2 maalin ayaa neebsanaa sabtigi iyo axadi maalmaha kaleente waa la cararaa sabtigi axadi marka maxaa kula gudboon badra iska cunaa guriga iska fadhiisanaa no waxaa loo baahanyaa maalintaas inaad lufta fresh aad soo qaadatid hawo macaan badan oo fresh ah inaad soo qaadatid socodka waa muhiim jirkaaga inaad dhisataa waa muhiim maxay ahaatay Soomaalidana badankooda hadeertaan waxay maxay ahaatay jecel yihiin inay badar iska cunaan guri iska fadhiistaan cayilka baaxiisayaan qof caata hadii arkaan waxay leeyihiin qoftaas way xanuunsan tahay war waxaaseeti waa dhaqan xun iyo aqoon daro ma fahanteen aniga sida idinka tihiin waa ahaa jir been ma sheegaa goorta Soomaali degnaa jiray cayilkayga 100 wuu dhamaa laakiinse markuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala i garansiiyay intaysan faa'iido lahayn hilibka yaa waxaan go'aansaday inaan iska tuuro go'aankaygana waan ka dhijiyay waxaan naqda hadeertaan kiiladeeda hadda idin sheego waaba yaabaysin 100 kiilo baad ahayd intaas ku noqotay dadaal baa lagu gaaray dadaalay wuu gaaraa balse waxaan ka codsanayaa videogan hadduu ku soo gaaro ii share gareey like-ta ku dhufo like waxay iga caawinaysaa dad badan inay igu soo biiraan subscribe badan ee ii saaraan adigana xabad ka dhimayso anigana dhiirgelin bay ii noqonaysaa hadaa awoodina kumanta qurux badan soo qor talooyin hadaa u baahan tahayna waxyaabo isku caateeyay barta kumantii ku soo qor su'aashaada waa kaga soo jawaabi doonaa hilibka sidoo kugu koro misana kugu fuulo maxay tahay fududahay laakiinse sida iskaga ridid way adag tahay ma fahanteen marka walaalayaal wacyigelin waxa idinka siinayaa sida maxay ahayd hilibka iskaga tuuri laheedeen sida aniga oo 100 kiilo ah ku ahay iyo sida hadeertan aan ku naqday 60 iyo 5 kiilo baan ahay hadeertan laakiin soonka iyo marka la galay suxuurta aan ku jiifanay ma aqaan 2 kiilo hadii kortay laakiin 2 kiilo hada bariyahan waa la tacaalaya ma fahanteen marka guys su'aashaada waa kaaga soo jawaabi doonaa barta commentiga halkaas ku soo qor Facebook-gaygana hada u baahanta single-kayga Facebook-gayga ku soo qori kartaa single-kayga ku soo qori kartaa qor Raqooy Maxamed ma fahanteen telefoonki xataa hada u baahantiin halkaan inii soo qoraya ma fahanteen marka wax kasta su'aal u baahantiin waan la soo jawaabayaa ma fahanteen marka aad u mahadsantihiin dhamaantiina intii ila joogtay horay iyo intii hadda igu soo biirtay iyo intii hadda maxay ahaatay idaaban doonto dhamaantiina madax korkiisa i saarantihiin madaxa meel ka sareyso malaha ilaaha idin barakay idinki awlaadiina iyo familkiina hadda awlaad u lahayn awlaad Allah idin siiyo oo saalixiin طيبين wan wanaagsan insha Allah intii guur gaartayna guur hadda ka maqan tahayna ilaahay ha u fududeeyo guur xalaal oo degdeg Allah sii wiil iyo gabarba Allahumma aamiin marka guys hilibka faa'iido ma laha hilibka hadda cayilsan tahay Soomaalidu waxay dhahan qurux waay laakiin si qurux fake ah waay qurux fake waa ana ku dhooy hadeertaan because waa cayilsan tahay caafimaad dara maxay ahaatay kugu imaanayso cayilka qurux waay la leeyahay laakiin qurux fake ah waay because markii aad cayilsan tahay waxa halis u tahay inay kugu dhacaan dhiikar hadee tahay beer subag hadee tahay sonkor hadee tahay marna hadee caloosha ka weynaato sonkorta basiid ayaa u tahay inay kugu dhacdo ma fahanteen taas anima dhihin dhaqaatiirta sheegtay caloosha
cudur oo dhan waa caloosha mar haddee kaa fakato marka adigan waxa waaye halis ay waxa u tahay intaas soo sheegay marka waxaan idinku dhiirigelinayaa maalimaha oo firaaqada aad leedahay intaad socon kartid inta awoodid soco waxaa kaleentoo tale idinku siinayaa biyo badan waa inaa cabtaan maalintii ugu yaraan litar iyo bar ilaa iyo 2 litar ma fahanteen ani 3 litar cabi jiray youtube-ka xataa waa idinku soo sheegi jiray laakiinse waa qalad 3 litar waa qalad litar iyo bar maalintii inaa cabtaa haddaa kor u booda 2 litar socodkana badso haddaa awoodidna iska soo qor jimicsi waa lacag yar lacag waxba ma tarto ma fahanteen amba sanadkii shubay lacag amba bishiyaa bixinaysaa ma fahanteen haddaa maxay ahaatay fursad u haynine intaa maxay ahaatay jiimka aadidne amba maxay ahaatay hooyo caruur yaryariis haysata haddaa tahay gurigaaga aa soo dhigan kartaa mashiinka lagu cararaayo hal maraa lacag gelinaysaa ma fahanteen mashiinka lagu cararaayo gurigaa soo dhigane baaskiilka gurigaa soo dhigane birar yaraa soo gadanaysa gurigaa iska dhiganaysaa ilaa iyo 1 kiilo 2 kiilo ilaa iyo 5 kiilo marka waxaa inoo balan ah marka inaa maxay tahay socodka la badiyo biyo badan la cabo jimicsi loo sameeyo cuntooyinka la cunaayo layska control lagu sameeyo cuntada iska cun ma aha marka anaa nila soo qaybsan doono waxyaabaha cuntooyinka ani maxay tahay isku caateeyay misana aan hadeertaan isticmaalo Soomaal haddaan nahay bariis baasto canjeero macsaro saliid cadeey bur no waxa oo dhibaatada noo keenaya intaas way ku sii dar wili caad hilibka ariga subagaas misare maxay ahaatay difintaas beerkaaga uma roono waxaan hadda idin sheegayo dhan anigaas ruqyo ah waan cuni jiray waana soo maray haddana waan cuna laakiinse iskama badiyo ebelka waxay ahayd xaduud la'aan qiyaas la'aan cunto kasta waa cuni kartaa haddaa jimicsi sameynaysid laakiinse waxaa loo baahan yahay inaa shay walbaba xisaabtankiisa aad ogaataa intaan ma kugu badan tahay intaan ma kugu yar tahay ma fahanteen marka asxaabay sida u jeedaan faloogaanayta meel dheer gaarsii kaligaas ku ekaysiinin wacyigelintan oo maxay tahay miisaanka iskaga dhimi laheedne walaalkay gaarsiisa ugu faa'iideysto adigoo 100 kiilo 50 kiilo ma iska dhigi kartaa waay jawaabka waxaa waay 100 kiilo anigoo ma iska dhigi kara 50 kiilo waa iska dhigi kartaa go-aanka adiga iskale gacantaada ku jirtaa waa adiga inaa maxay tahay ka go'naata haddii laakiin ay kaa go-neen oo maanta dhan waxaa cunaysid aan xisaabeynin socod aad sameynin iska fadhinaysid guriga biyo badan aadan cabeynin cuntadaada control ku sameyneynin maxaa iroon maxay tahay maxaa sax maxaa qalad haddaana sixinin weligaaga macaatoobaysid weligaagane caafimaad daro iyo maxay tahay cudurradii soo sheega dhan waxaasoo dhan ayaa halis u tahay guys marka waxaan idin leeyahay jawaab waan isoo celi doonaa haddaa adi maxay tahay su-aal haysatid barta commenti kusoo qora insha allah masiingalkayga facebookgayga Ruqayya Maxamed waa haddaa u baahan tahay dhanka masiingalka kusoo qor wixii maxay tahay ani i wareysa laheedeen koow horta waxa aad sameynaysa marka ugu horeysaa waxaa cuntadaada iska sax waxa cunaysa iska sax biyo badan cab waqtiga cuntada cunaysa saacad go-aan u yeesho macmacaanka jooji sokor jooji bur jooji saliid jooji ma fahanteen aan hadda waxyaabo badan hadeertaaneetii nila soo qaybsan lahaa laakiinse hadeertaan insha allah fursadii oo ugu yar tahay waxyaa brotiinayaal hadda aa soo gatay caleen la isku cateena waxyaabo herbad life hadda kor waa soo geliyey laakiin hadda brotiin waxaa helay caloosha dhan kaa jarayso marka go-aankaas ma leedahay brotiinkaas insha allah wili ma furin waan la soo qaybsan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo biyaha kulul iyo liin dhanaan yariis lagu miiraayo iyo sanjabiil aad u wanaagsan tahay haddaa gaas qabtid iska dhaaf ma fahanteen
hadaa gaas qabtid iska dhaaf. Soomaali haddaanahay gaas ayaa raaxada naga qaaday. Anigaas hadda nila hadlayo gaas baa nafta iga qaaday, ma fahanteen. لأن أنا إسنجبيلي بلايسس إتان والله ما جوجي هدرتانيتي واشيتا تلاجدا قشتا سوبح كستنا هالبكيريا كعبة مفانتين أسيقو برفني واسميي وأنا لسوق قبسده هدانا دا أباهنتين وأنا لسوق قبسده دونا سيدي لسكوكو شيدايو تلاجدا لو قليناي مفانتين يا اسمركو لالي قايلي وحا أباهانا هاي 10 kun ayaa waxyariisa noogu dhiman 10 kun inaana gaarsiisaan sii share gareysaan si walaalaha kale intay ugu faa'iideystaan like-tana noo badisaan like-ta wax badan ay naga caawinaysaa adigana xabadka dhimayso anigana walaxa ii taraysaa markii like badan aad saartaan videoga micnihiisa iyo nuxurkiisa waa maxay ahaatay waa la dareemayaa dadkiina way ku soo wada yaacayaan insha Allah marka idinka dadna lagu yahay haduu Ilaahay yiraahdo idinka maxay ahaatay ayaa dadka kor u qaadi karo hoosna u qaadi karo waxaad idin lahaay channelkan kor loo qaado biidni Ilaahay kariim waa codsi guys marka waxaa ku dhiilay marka videogan oo kale hada maxay ahaatay wacyigeliga u baahan tihiin oo soo badinaya cuntooyinka la isku caateeyo waxyaabaha sameey lahayd insha Allah hada u baahan tihiin waan la soo wadaagaya ma fahanteen guys marka meeshaan maanta lug soo furay lugta soo furay socod kaligeega soconoya familka dhan way wada jiifeen aniga maadaama subax kasta ayow horta wadankan dhamaan bacayo waa la wada kacaa wixii iskuul aada wixii shaqo aada laakiin aniga markii waaga markuu sas u bariibo salaad subaxdii la tukadabo waxa waa mataqaanin jiif inaan ku naqsado ma jeclabo marka xasir maadaama axad ay tahay familka ay jiifaan adigana ayow soo kacday وطريرة بيكو سو شبتي كابيغ او جميعسي كو سمينا سو قاتي لوكتا سو فري فائدة بدن ايغو جرتو سocod كان aan soconayo jirkaaga dhan uu ku dhismayaa haba fresh soo qaadanaysa luft fresh muhiim ay ku tahay adigoo gurigaaga u xiiso qaba imaanaya adigoo qaajo ku haysa imaanaya adigoo oomana imaanaysa wallahi waxa ku dhahay dhididka ee imaaday marka guriga imaaday dhididka fanaanda xataa aan idin tusaan rabay fanaanda waxa ugu jirtay oo qadka ah ka dalbaday oo bac ka samaysan oo maxay ahaatay baruurta shiilayso fanaandas inaan soo duubaan rabay laakiin fursad waa u waayay marka guriga imaaday fanaanda iska siibay biyo tas ka dhahay faa'iido badan oo marka dhididkaas ka baxaayo waa maxay ahaatay muhiim ay ku tahay dhididkaas ka baxaayo jirkaaga muhiim ay ku tahay ma fahanteen marka ogtiin hadeertaaniti ummadii dhamaan ila amarkiisa qof walba waxa waa mataqaanaa iska caajisan tahay qof walba xanuun sokortiya badatay dhikarkiya batay cudurada yaa soo bateen marka inta soo dhan waxa weey dadaal la'aan cuntooyinka oo hada la cunayo sun ayadaaba wadankan siibo wadankan oo hada Yurubadan hada la joogo cuntooyinkooda waaba sun ma fahanteen cuntooyinka calooshaada waa inaad ka nadiifisaa calooshaada waa inaad soon bartaa soon isniin iyo khamiis haddaan soomi karin soon waxaa jiro 16 saacadood la soomay ma fahanteen hadda ani bariyahan 16 saacadood ayaa soomaya soonka isniin iyo khamiisna insha Allah waan soomaya bilaabaya horey waa soomi jiray khamiis isniin ma iga faka jirin laakiin bariyahan waa iska ma mashquulay laakiin inaan dib u bilaabo waa caafimaad waay wallahi isniin iyo khamiis la hadaa soontid caafimaad badana ka dareemaysaa jirkaaga dhan calooshaada unugyada oo muhiimka dhan nadiif ayaga soo saxay ma fahanteen marka insha Allah hadda markii sooga ku jirnay afurka waxa la afurayay ciyaaba la afuray laakiin hadda saacada ku darsoontay ma fahanteen saacadiya lagu daray marka Yurubtan hadda aad joogno xawaaye xilliga oo samarka mise kuleelaha markii la gaaro saacada wax bay ku daraan xilliga qabowga markii la gaarana saacada way ka jaraan hadda saacadana lagu daray marka xilliga la afuray waa la dheereysiyay laakiin dib ma laha muhiim waay inaa maxay tahay isniin iyo khamiis ajarna waa helay caafimaad waa helay hadda oo maxay tahay isniin iyo khamiis soomi karin 16 saacad waa inaa soontaa marka insha Allah haddii aan maxay tahay asla bilaabana isniin iyo khamiis maxay tahay isla soconeeno cuntooyinka ku afureeno waxyaabo asal sameeyneeno hadda u baahan tahay barta commentiga soo qor insha Allah isla soconeena socodna hala badsado biyo badan hala cabo marka sida u jeedaan xaafad oo fag ah soo aad iga fagta xaafadan waa soo warwareega ku dhahay marne xataa ma fariisanin
markii oon iqabto biyaha iska cabaayay waa iska soo soconayay wallaahi socodka muhiim waay markaas wixii aad soo kacaysid adna waxaad dareemaysaa caajis korxan xanuun laakiin markaa watar yar biyo aa ku shubatid kabahaaga jimicsi aa qaatid ee socod aa bilowda adi dhan waxaa naqanaya wallaahi habi khafiif sida xaansho oo kale u biibaysa xaansho ma fahanteen guys marka videogan oo kale haddaa soo badinaayo iyo wacyigelin haddaa u baahan tihiin talooyin haddaa u baahan tihiin insha allah barta comment kusoo qora insha allah janan kale waa furan doonaa oo qiso le ka sheekeyn doono oo wax kale cunto la soo gelinin cunto inaad soo gelin horta waaba nacaybo because cunto haddaad soo gelinayna cuntooyinka laisku caateyna keliya bas because cunto ma fiicno inaa maanta dhan cunto le soo wado mise kaleente wallaahi bilaahi waxaa ma taqaanin cuntooyinka inaan joojiyo marka insha allah saasaa rabaa la socda oo videoyaalka oo cuntooyinka haddaa soo gelinayna cuntooyinka oo laysku caateynayo waxyaaba cabitaanka laysku caateynayo inaan soo geliyo saa ujeedaan meeshaaneti waxaan ku dhaqanaynaa gabar saaxiibteyda qaaliga ah gurigeeda waxaa ku dhaqanoonaa maxay tahay meesheeda makiinkeeda maatooyinka anaga makiinka gurigeeda noo taalaa laakiinse maato ma ku dhaqi karno laakiinse gabadhan oo saaxiibteyda igu qaaliga ah makiinadeeda noo xirtay maatada marka soo dhaqanaynay iyo go-yaalka oo maxay tahay aad iyo aad u waaweyn oo guriga lagu dhaqi karin ma fahanteen marka aada u mahadsantihiin videogaanita dooni soo gaaro like-ta aan shareka aan commentiga yaa marka aada u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin marka videogaaniti maxay tahay oo dharka aan dhaqeeno shalay oo ahay oo sabtiga ah waa iska soo baashaalnay markaa dhar dhaqitaanka dhammaynay maxay tahay ani iyo waa badneen waa soo baashaalnay xalay 4 saac iyo bar camal kasoo tagnay alxamdulilah maatadeenoo qaleel noo noqotay nadiif noo noqotay soo baxnay marka alxamdulilah ilaah subxaana watacaala ayadana ajri xasanad allah ka siiyo saaxiibteyda qaaliga ah halkaan ka salaamayaa xaaba cadeey ilaahay subxaana watacaala caafimaad cimri dheer ciwaad suban allah ku siiyo ilaahay subxaana watacaala il iyo cadow alla kuma tuso ii noolaaw cadowga u noolaaw caafimaad taama ilaahay kaga rajeynayaa marka waa kasaa asxaabteyda aada u mahadsantiid saaxiib wanaagsan oo qurux badan haddaa haysatid waxba kaama halaabayo saaxiibtanimadan waxaa aada iyo aada u wanaagsan labadii qof ilaahay dartiis saaxiib ku noqdaan laakiin saaxiib oo xan iyo xasadnimo iyo qashan iyo balaayo iyo been wado weligaaga ka fogaaw marka gabadhan saaxiibadeyda aada u jeclahay ilaaha barakeeyo ilaahayna caafimaad taam allah siiyo insha allah igu soo duceeyo inuu ilaahay caafimaadkeeda u ziyaadiyo guys marka sida u jeedaan meelahan doogdooga ah meelahan geedaha leh meelahan oo habada nadiifka ah wallaahi yaa ku dhahay caafimaad waxaa kasoo qaadaysaa adi dhan habi aa naqanaysaa habi ma fahanteen guys marka waqti ay ugu socdo videogan codaa soo saarayaa waxay ii tahay saacadda 1 saac iyo 12 daqiiqo waxaan rabaa inaan supermarket halkan ii dhow aado soo adeegto beri orada bilaabanaya waa maalin oo beri isniina waaye maxay tahay videoganitin hadda idinku soo tuuraya marka maadaama beri orod bilaabanayo wixii yarirootiga loo baahan yahay caruurtii dadka dhammaan caruurtii guriga fadhiyaan wiigaan oo dhan fasax beenoo yihiin laakiin aniga orday soo ma marka wixii oo guriga loo baahan yahay soo dhigana wixii shaqada u qaadan lahay marka guys xaafadaanit wallahi waxaa ku dhahay xaafad lugees ku macaan badan waay waxaa ku dhahay jabi degan axadii waxaa ku dhahay ruux banaanka socdo ma arkaysa waxaa leedahay 10 sano maa laga qax xaafadan kaliya waxaa arkaysaa qof jimic sameynayso qof cararayso qof jirkeeda dhisanayso kaliya maahan qof oo ciyaar ku socoto ma arkaysid cidlo marka aan hadda kaligeyga iska socdaa ilaaha ila jiro waan socdaa waa fiican tahay inaa maxay asxaab badan la soo wada raaco maalmihii axad iyo sabtiga la jimacsado laakiinse anaga hadda Soomaalinahay badankeena ma xiiseena waxaas waxa la xiiseena inaan guri iska fadhino wax iska cuno ma fahanteen oo ilaa amarkiisa qof walba joosay leedahay Soomaha marka gabdhaha waxaan hadlayaa oo maxay tahay hilibka isku deeyay ee caloosha sida tin camal u deesteen waxaas waa laga fiican yahay hala soo baxo banaanka hala soo baxo maalimaha sabtiga axadda hala isbalansado hala socdo biyo badan hala cabo jimicsi badan hala sameeyo jimicsi jiimka aad iska soo qor hadaa jiim iska soo qori karin gurigaaga bir soo dhigo birta lagu cararayay soo gado birta baaskiilka soo gado
birar yar gurigaaga iska soo dhigo jimicsiga gurigaaga ku sameey maalimaha sabtiga xadda soco hadda caruur leedahay xataa qasab maahan inaa maxay ahatay caruura leeyahay jiim ma aadi kari banaan ma aadi kari in aadad qasab maahan caruurta waxaa ugu soo tegi kartaa caruur kale hadday ku joogaan xaaja ugu soo tegi kartaa muhiimadda waxaa waa caafimaadka maxaa maanta caafimaad noo ah maxaa maanta caafimaad daro noo ah waa inaa ka fikirnaa cuntooyinka maxaa noo wanaagsan maxaa noo xun inaa dhahnaa marka burka iyo bariiska iyo baastada iyo sidhacadeyda iyo haddaa cunto haddana fadhi kusii darsatid wallaahi dhibkeeda leedahay marka in la dadaala waa muhiim dadaalka waa muhiim ilaah subxaana watacaala wuxuu dhahay dadaala anigana waa nila jiraa wadan waxaa joognaa ogtihiin qabowga barafka qoraxdeeda aan maxay ahatay aan la arkeynin inta oo qabowga iyo dhaxanta iyo barafka ah ku dhex jirno inta kuleelaha ku dhex jirno inta qabowga ku dhex jirnaa badan kuleelkeeda way yar tahay ma dhehaysid sanad kasta waxaa aadaa wadan qorax leh waa soo qoraxaysana ma dhehaysid qoraxdana sidaa ognahay dee vitamina laga helaa marka hadda waa ognahay dhammaanteen waxaa ku wada soconaa kaniiniga dee vitaminka qaadana waa ogtihiin marka qoraxda marka dee vitamina ku siinaysaa waxaa ku dhihi lahaa marka aa idin dhihi lahaayay guryaha laga soo baxo xilliga samarka xilliga qoraxda ha laga faa'iideysto meeshaan biyaha oo ku jiro iyo meelaha cagaarka doogdooga indhaha way u roon yihiin maskaxda way u roon tahay wax kasto miicawga geedahanayta ayirka nooc ilaahay soo abuuray carafta kasoo baxayso jirkaaga iyo maskaxdaada way u fiican tahay inaad lufta fresh aa qaadato waa muhiim marka gabdha waxaa idin leeyahay inta halkan iga dhagaysanayso dhammaantiina wacigeligan waxaa idin taro waanadan waxa laga qaato guriga laga soo baxo bir haddii sokor kugu dhacdo dhiikar kugu dhaco cirbad duro isbilaawda adi dhan wax ma qabsan karto sokortana aad u adab daranta waa ogtihiin qofta markay sokor ku dhacda ayada dhammaan xataa maskaxi ahaan xataa dhibaata soo gaarayso ma fahanteen marka ilaahay subxaana watacaala noguma rido intii oo ku dhacdana ilaaha ka caafiyo marka intee sokor iyo dhiikar waxaas kugu dhicin hadda ma gaarsiimaa leedihiin gaarsiimadaaseti inaa ka dadaashiin oo ku dadaashiin waa muhiim ma fahanteen marka insha allah ani un waan dadaalayaa ilaahay horta wuxuu kuu ridi doono cidna kaama celi karto laakiinse dadaalku waa muhiim marka haddaad tiraahdo ma dadaalay caloosha tin camal u deysanaa wallaahi haddee mar caloosha fakato horta hooyaa leeyahay caloosha anaga dhan waa leenahay laakiinse haddii maanta ma dadaala aa dhahdina calooshaada way sii weynaanaysaa calool oo ilmo soo dhasho hooyo aad tahay hadda caloosha haddaan laga fikirin dhibkeeda leedahay jirkaaga haddaa maanta ka fikirin dhibkeeda leedahay haddaa cuntadaada ka fikirin dhibkeeda leedahay marka waxaa idin dhihi lahay wax walbaba gacantaada ku jiraa noloshaada gacantaada ku jirtaa ilaah ka sokow inaad iska fikirtid waa kuu muhiim guys marka warka haddaa idinku badshay jeceel a idin qabo waa ma fahanteen videogan like-tiisa share gareyntiisa subscribe-kiisa 10 kun hala gaarsiiyo wax yariisa nooga harsan insha allah hadda ka bacdi waxaan isku ognahay waxyaabo waxtar leh inaan soo geliyo cuntada aan soo gelgelina inaan joojiyo qisooyin iyo waxyaabo badan oo waxtar leh inaan soo geliyo maadaama hadda samar noo bilaabanayo meelaha qurxoon oo qurxoon inaan soo duubo insha allah hadda maxay tahay meedka cafi noola dhihin inkastoo maalin kasta aan cararay laakiin maalimaha sabtiga hadda fursad helo waa idin soo duubi doonaa wixii karaankeyga wixii nila soo jeclaada insha allah aad idinkaga mahad celinaya inta hadda ila soo gaartay hala dhaafin like-ta share-ka commentiga waxaa isku ognahay in oo maxay tahay jirka loo dhisto Soomaalidan badankooda waxay aaminsan yihiin cayilka inuu caafimaad iyo qof caatay haddii arkaan way xanuunsan tahay tiibishay qabtaa la leeyahay Soomaali horta maxay tahay ila amarkiis waa la jaabay adii mar hore daa jaahil ahaa jirta hadda wadamo oo horumar leh daa imaatay waxaa laga baahan yahay jaahilnimadaada ma ku soconimay أنا دن هذا مركز سومالي جوجنا عيل كآمن سرين فانتين لكن هذا من دام وضمه هر للا إماضي وحوا منطقة جبيجة أفان ترى المجال أنا قطي إنه هلبك وحيابا حن أنك جرتوا مهم ما فانتين مركا هلبك وأكتشين قفك مركا دقان لهين أي أسمعنا يا فانتين إن أديكو يريس هذا هلب لا هاي وحكا ديجا يقف وين أو محيته هو يضع هو يدي يصير شو أكانس لكن مركا هلبك سكرتد da-daada nadiif adi dhan waxaa naqanaysaa jebigaaga waa kuu fadhisaa ku dhahno kaale iska aragno ma fahanteen marka fadhiga laga kacday in adeer yaalo intaan ka badan wacyigelin wax badan aa idin soo wada haddaa ka heshaan barta kumanti kusoo qora wixii miisaanka iskaga riday sababta oo maxay ahaatay oo keentay inaa miisaanka iska rido sababta keentay miisaanka waxaa ah cayilkayga zaa'id uu ahaaye kabacdina miisaanka inaa iska rido ayaa go-aan gaaray ma fahanteen qof walba joosi leedama hoo jooskayga waxuu noqday inaan la dagaalamay hilibka
weligeygana hilib ma jeclaanayo weligeygana hilib ma jeclaanayo waxaa rabaa laf iyo maqaar inaa iska dhigo ma fahantay marka jooska adaa iskale adaa oo maxay tahay janankaneetii waxyaaba soo gelgelinayo la iska caateen adaa ka faa'iidaysanaysa iyo haddii aa u rabin adig waay marka talo waxaa iga ah hilibka la iska tuuro jimicsi hala sameeyo biyo badan hala cabo cuntooyin control lagu sameeyo guys marka inta hadda ila soo gaartay share dhaha videogan share dhaha gabarka hadda waa ogtihiin dadka oo dadaa ku dhimanaya hadda qarashaa la bixina cayilka isku qalqalayaan cisbitaal la tagaaya hilibka caloosha la iska qalaya qanjaha la iska qalaya ku dhimanooyin qaarkood ma fahantiin laakiinse geerida xaq waaye inaa maxay tahay isqalqashid waa maxay tahay inaa iska joojisaan waxaa si dabiici ah hilibka iskaga ridi kartaa adoo isqalin ma fahantiin tartiibkaaga cuntadaada controlku sameynaya waa soconay biyo badanaa cabaysaa xaaba qalow qoorta kaa geliya ma fahantiin guys marka waxaa idin leeyahay idin wacnaato wax kasta idin tahay meelaha qurqurux badan aan isoo duubi doonaa meelaha oo maxay tahay sida ujeeda meelahan oo kale hadda way diyaarsantahay ku dhahay adii iyo maxay tahay familka isoo racaysiin cuntadiina soo qaadanaysiin meeshaas si sharaf leh maxay tahay wax ugu karsanay ku cunaysaa marka ka bixisna waa hagaajinaysaa nadiif qashanka meelaha loogu talagalay qashanka meelaha ku tuura iyo afaarahaas iyo no meeshaan qashanka meesha loogu talagalay ku ridee birtaaneeti dadkii oo dhan ayaa maxay ahayd yemen sama ku samaysanaysiin kaligaaga midhiid qof walba wax ku gariilaysanayso si loo soo kala hormaro ma fahanteen kuraastaas yemen sama waa qof walba waa fariisan kartaa free waa qof ka kac ku dhehaysa malaha ma fahanteen deewaakaas hanoo wacnaato wadankeena ilaah subxaana watacaala allah anagu caafimaad qabno allah noogu soo celiyo wadanka hadduu hagaagsan yahay ilaah noo sii hagaajiyo madaxdeena ilaahay sharaf iyo karaamo aan leeyahay ilaahay waaba siiye allah u siyaadiyo madaxdeena ilaah subxaana watacaala kor alla u qaado dadaalkii dadaalayaan ilaah subxaanahu watacaala ilaahay ha u sii ziyaadiyo hana u fududay xil bay haayaan intii oo maxay tahay dadaalkii oo madaxweynaha sameeyay inkirsanne xaqa allah tuso insha allah soomaalida badankooda hadda waxaa xanuunjiyey oo dhibay oo waalay waxyaabo qaldan ma fahanteen marka wadankii waxba mataqaan wuu hagaagay laakiinse wuxuu ka hagaagi la'yahay oo hadeertaanita inta dhiman oo in la sax la rabo shacabka weeye shacabka wadankane wadan kastana shacabkiisa wadanku yahay laakiin shacabka hadday halaysan yihiin madaxweynaha hadda wax ka sameeyana ma arkayaan indha sarcaad ayaa haysta indhihiya caro looga shubo ma fahanteen waxba ma arkayaan because madaxdeena hadda madaxweyne wax badan uu qabtay laakiinse dadka inkirsan
همبرقي قد مفوشة مفولة وانك هذا ورسو إري مرعدا مرعي وانك رره شمبريه ضيع عندها مرة عوزكي با صبحي 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 همبرقي قد مفوشة مفولة وانك هذا ورسو إري مرعدا مرعي وانك رره Ah.